عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamida militariga Ruushka ee ka dagaalamaya Suuriya ayaa sheegay in fallaagada marin ay kaga baxaan bariga quuta siinayaan basaas hore uga tirsanaa sirdoonka Ruushka iyo gabadhu dhalay ayaa sakaraad ku ah cusbitaal ku yaala dalkan Britain kadib markii waxaan la garanayn ay saaqeen waxa kaloo idin haynaa Aamina Xirsi Mooge oo kamid ah dumarka ugu lacagta badan qaaradda Afrika ayaanu waraysanay bal sida ay heerkaasi ku gaadhay Ruushka ayaa siiyay mucaaradka iyo qoysaskooda marin ammaan ah oo ay kaga baxaan bariga quuta maalin kadib markii dagaalku uu ku qasbay inay istaagto sahaydii ay sideen kolonyo gargaarka waday tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo hay'adda carruurta qaramada midoobay ay ku qiyaastay in kun carruurihii ay sanadkii ku dhimatay Suuriya iyo inay caadi u noqotay carruurtu inay dhulka hoostiisa ku noolaadaan Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya dagaalka Suuriya bariga quuda waxaa xukumayay maleeshiyada islaamiyiinta ilaa iyo 2012 qaar ka mid ah maleeshiyada waxa u socda wada hadal balse lagama gaarin heshiis Dimashq oo dhowr mayl u jirta way ka dhimasho iyo burbur yar tahay bariga quuda balse gurigan dhulka hoostiisa ku yaal macna uma samaynayso taas marka nolosha qoyskooda uu bedelay weerarka ruux kasta oo ka tirsan qoyska Hindi hoobiye ayaa dhaawacay dhowr maalmood ka hor carruurta ayay iskoolka ka soo bixinayeen markii uu hoobiye ku dhacay Maria al-Hindi waa 12 jir cagta ayay ka go'day waxaan weydiiyey maxaad ku oran lahayd ninka hoobiyaha soo riday waxaan u sheegi lahaa marka aad hoobiye ku ridayso dad aan waxba galabsan qiyaas inay carruurtaada yihiin waxaan ku leeyahay qof xun oo fulay ayaa tahay haddaan fulay ahayna inta hoobiyo nagu rido ma cararteen madaxweyne Bashar al-Assad hadda ayuu ugu xoog badan yahay ilaa iyo markii uu bilowday dagaalka wuxuu sheegay in galbeedka ay ka been sheegayaan dhibaatada bani'aadanimo ee bariga quuda madaafiic iyo duqayn cirka ah ayaa ku socda dhulka hareeraysan kooxda samata bixiyaasha difaaca rayidka shalay waxay la kulmeen weerarkan waxaa sidoo kale weerarkan la kulmay kolonyo siday gargaar xadidan way ka ordeen inta aysan rarka dejin sababtoo ah duqaynta darteed xarumaha caafimaadka ee ku yaalla dhulka hoostiisa bariga quuda si weyn ayay u shaqaynayeen toddobaadka oo dhan tani BBC-da ayaa soo duubtay dowladda Suuriya nooma oggola inaan galno bariga quuda halkaasi oo aan laysku qarin karin meel kastana lagu dhiman karo Britain ayaa sheegtay inay jawaab degdeg ah ka bixinayso haddii ay caddaato in Ruushku ku sameeyay dalkan Ingiriiska basaas hore oo magaciisa la yiraahdo Sergei Skripal iyo inantiisa Yulia xaalad adag ayay ku jiraan nimka cusbitaal halkan ku yaala markii axadii laga helay meel banaana iyagoo miirla Ruushku waxay sheegeen in dhacdadaasi loo adeegsaday in lagu dhaawaco iyaga Qaalib Xasan Baaruud ayaa inoo faahfaahinaya warkan waxaa la aaminsan yahay in dadka ku jira muuqaaladan oo la duubay axadii ay kala yihiin Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia laakiin saacada gudahood waxay ahaayeen sakaraad nin baa kursiga ku suuxsanaa wuuna matagayay waxaa kaloo la ii sheegay in qof dumar ay dhulka jiiftay ma arki karin dad badan ayaa dul taagnaa ninka uu goobjoogahani arkay waxa uu leeyahay taariikh dheer Skripal waxa uu dhashay Ruushka waxaana lagu xukumay inuu basaas u yahay reer galbeed ka hor intii uusan u soo guurin Britain maanta booliiska Britain waxay diiradda ku hayaan agagaarka xaruntan dukaamaysiga ee Salisbury halkaasoo Skripal iyo gabadhiisa laga helay iyaga oo miirla booliisku waxay hadda wadaan baaritaan lagu ogaanayo in dambi dhacay waxayna taageero ka helayaan ciidanka la dagaalanka argagixisada
muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaynu ogaano waxa cudurkan keenay iyo sababaha uu sida dhaqsaha wax ugu yeelayo dabeetna waxaynu u baahan nahay inaynu isticmaalno awoodda khaaska ah ee ay leedahay hay-adda ka hortagga argagixisanimadu oo dabeetana dalka oo dhan ay wada shaqeeyaan iyo islamarkaana la kaashada hay-adaha kale ee Sergey iyo Yulia Skrapol ayaa weli ku jira xaalad halisa. Shaqaalaha caafimaadka dadweynaha ayaa ku adkaysanaya inaan dhacdadani khatar ku ahayn caafimaadka bulshada. Hase yeeshee calaamadaha dhacdadani waa kuwa u dhigma weerarkii lagu sumeeyey Alexander Litvenkow 2006. Safaaradda Ruushka ee London waxay maanta ka cabatay sheekooyin kutirikuteen ah oo lagu waxyeeleynayo sharafta Ruushka. laakiin xukuumadda Britain waxay Ruushka u diraysaa digniin. iyadoo ay khalad tahay in laga sii hordhaco baaritaanka waxaan u xaqiijin karaa aqalkan baarlamaanka haddii ay soo baxdo caddayn in dal uu ku lug lahaa in dowladdayadu ay si adag oo habboon uga jawaabi doonto. ka soo booqatay Ruushka ka hor intii aynan xanuunsan iyaga unbaa caddayn kara wixii ku dhacay Axaddii laakiin waxay ku jiraan xaalad halis ah. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaali adoo ka galaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa BBC-da u sheegay in dalkiisu xaq u leeyahay inuu Yemen ka dagaalamo isagoo sheegay in fidmada ay mucaaradka Yemen bilaabeen. Said Al-Jubayr ayaa ku eedeeyay Xuutiyiintu inay wiilal yaryar oo 9 jir dagaalka soo galiyaan isla markaana ay boobaan gargaarka. Qaramada Midoobay ayaa dhankooda sheegay in rayidka wax la yeelay ay badankooda wax yeeleen Sacuudiga duqeyntiisu. koox ololaysa oo la yiraahdo Global Witness ayaa ku eedeysay madaxweynaha South Sudan inuu la wareegay shirkadda batroolka ee dalkaasi isagoo lacagta shidaalka dalka ka soo baxdana militariga iyo maleeshiya beeleedyo ku isticmaalaya. waxaana ay sheegeen in taasi dagaalka sokeeye halkaasi sii horin doonto. dowladda South Sudan ayaa iyadu dafirtay eedeymahayn. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay qaybteeda xuquuqda insaanka ayaa sheegay in dowladda Barma ay weli joojin isirsifaynta ay ku hayaan qowmiyadda Rohingya kadib markuu booqday xeryaha Bangladesh ku yaala. ayaa Andrew Clammer u sheegay in dadkaasi aanay iminka ku noqon karaynin weli dalkoodii iyadoo xaaladdu adagtay. hay-adda carruurta ee qaramada midoobay UNICEF ayaa sheegtay in tirada guurka carruurta dunidu ay hoos u dhacday 10 sano ee la soo dhaafay. dalka Hindiya ayaa isbeddelka ugu weyn aad ka arki kartaa inkastoo weli Hindiya ay tahay haddana dalka ugu tirada badan ee lagu guursado hablo yaryar oo weli carruur ah. balse gobolka waqooyi bari ee Rajasthan ayaa ka soo horjeesanaya caadadan soo jireenka ah. Caasha Afrax ayaa ka warramaysa. Monica waxa ay la soo adeegaysaa hooyadeed. waa qayb ka mid ah nolosha caadiga ah ee qoyskan. balse dhowr bilood ka hor waalidkeed waxay isku dayeen inay nin u guuriyaan ayadoo 13 jir ah. hase ahaatee guurkeedu ma uusan hirgelin sababtoo ah Monica waxa ay ku dhiiratay inay waalidkeed ka dacwayso hay-adda daryeelka carruurta. waan wacay wax walba ayaan u sheegay. waxaan weydiistay inay igu caawiyaan joojinta guurkayga. haddii aan guursan lahay reerka ninkayga ma aysan ii ogolaadeen in aan sameeyo wax aan shaqo guri ahayn. waxaan aabbaheed Ganesh weydiinay inuu ogaa in guurka carruurta uu yahay faldambiyeed. waan ogahay inay tahay faldambiyeed laakiinse annagu waxaanu nahay reer iska murqumaala oo iska saboola. waxaa laga yaaba mararka qaarkood inaan bilaba shaqaynin. markaa waxaanu sidhi mar haddaad inan guurinaysaan Monicana iyaduna ha raacdo ha guursato si kharashku idinka yaraado. ugu dambayntii Ganesh iyo xaaskiisa waxa ay booliska u ballan qaadeen inaysan u guurin doonin Monica ilaa ay ka qangaarto. la kulan Preet Yadav waa haweeney u xilsaaran ka hortagidda guurka carruurta ee gobolkan. waxa ay qaabilsan tahay kiisaska iyo xogta lagu soo gudbiyo taleefannada. waxay ahayd Preeti qofkii joojiyey arooskii Monica ayadoo la shaqaynaysa booliska u tababaran arrimaha guurka carruurta. markii ay Monica ina soo wacday subaxa arooskeeda waqti nagu filan ma haysanin. 3 saacadood ayaa ka dhimanaa arooska. waxay xirneed dharkii aroosadda markii aan gaarnay gurigeeda.
Priti waxa ay ka tirsan tahay olole ballaaran oo lagu joojinayo guurka carruurta ee gobolkan Rajasthan oo gabdhaha badankood lagu guursado iyagoo ka yar 18 sano. gabdhahan ardayda ah ayaa qaadaya heese lagu diidayo guurka carruurta. waa ay og yihiin waxa uu sharcigu yahay iyo sidoo kale inay waxbarashadu tahay habka ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo guurka carruurta. Monica hadda waxa ay gurigooda kula sheekaysanaysaa saaxiibadeeda cusub Priti. waa ilmo sigtay oo carruurnimadooda ku badbaadsaday geesinimo. caaway ciyaarahan xagga tenista gabadhii hore hoggaanka ahayn jirtay adduunka ee tenista ayaa sheegtay inay dhiirigelisay inanteeda yar ee 6 bilood jirtay ee daawanaysa ciyaarteeda. Serena Williams ayaa soo rogaal celinaysa toddobaadkan ciyaarta Indian Wells ee dalka Mareykanka. waraysi ay BBC siisay ayay ku sheegtay inay Afrikada meel ka furi doonto lagu ciyaarayo WTA tartanka la yiraahdo. waxaana It is something I thought about and I would like to keep thinking. waa wax aan hore uga fikiray oo aan ka sii fikiri doonana. waa ku faraxsanahay inaad soo hadal qaaday maxaa yeelay waa arrin muhiim ah. waa wax lagu farxi doono sidaan isku gacan qaban karno. ciyaaryahanada Afrika ka soo bixi doona waa arrin aad u weyn. Aamina Xirsi Mooge waa haweeney Soomaaliyeed ah oo degan Uganda. waxay ganacsi ku leedahay qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika. ganacsiyadeeda waxaa ka mid ah warshad sonkorta soo saarta. waxayna ka mid tahay dumarka yar ee guusha ka gaadhay ganacsiga qaaradda Afrika. waxay ku guuleysatay abaalmarinimo sida haweeneyda ugu maalgashiga wanaagsan Afrika. waxay ganacsi ka bilowday iibinta masaabiirta. BBC-da ay la hadashay. ganacsi baan hooyaday lahayd. waxaan ka bilaabay dukaan masaabiir iyo dhismada ku saabsan baan ka bilaabay. meeshii baan la qabsaday. horumarka sida aan anigu meesha gaadhay kayga maanta muu bilaabin. kayga wuxuu ka bilaabmay ilaa ma anigu 9 jir ahaa. waayo ilaa ma marka 9 jir ahaa baan anigu shughul oo ganacsiya lay baray. anigu waxaan arkay meeshaan ka shaqeynaya sonkorta baan arkay. warshada waa meel maxaa la yiraahdaa meelaha adan sheego malaha Soomaalida tuulo weeyaan. marka meelaha tuulada ba wax laga soo saari karaa. sidaas aan anigu ku fikirayay ku xandi hadaan meesheeda dhameeyo. waxaan anigu dadka Uganda ka shaqeynay waxaan anigu ku fikirayo inaan la imaado fikrad caynkaasa oo dadkeenana tuso wax laga soo shaqeyn kara. marka wax sameeysid markaas dadkana wax tari karta. hadaan anigu qof ganacsi ahayn hadaan waxba garanaynin qof hata haduu bilyono ku siiyo wixii oo waa baabiyeysa maalin baa ku baabiin karta. macnaha Uganda waxay igu saacidseen inay dadku gartaan waxaan anigu sameyn karo. anigu waxaan ku leeyahay hadaan maanta anigoo gabadh Soomaaliyeed maanta hadaan ku oran lahaa oo Soomaaliya joogi lahaa ma la ii ogoleyn waxaan anigu halkan sameynay runta hadaan la doonay. laakiin imika alxamdulillah waa la arkay waxaan anigu sameyn karo. waa gurigay waa dalkayga hooyo oo waa lay soo dhaweeyay. hadaan anigu sameyn karo waxaan sameeyay. dumarka Soomaali oo dhan way sameyn karaan. chance un ma haystaan iyo qof ku yiraahdo mentoring iyo sidan baan sameyn karaa bay u baahan yihiin. niyadda baa horta wax walba ka tahay inaad tiraahdo wax baan qaban karaa. wax walba inaad isbedel iyo ina wax sameysid horta adigu ka bilaabmay. adiga haddaad tahay dumar ama gabadh ama maxay horta adigu ka bilaabmay inaad tiraadid waxaan wax fiican baan rabaa inaan noqdo. caawana waxaan idinkaga tegayaa hamburgerkii oo robotkii samaynayo oo laga yaabo dad badanba inay ku shaqo waayaan oo awal iyagu samayn jiray. nala daawo robotyada Los Angeles restaurantka ku yaala. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa. waa ku mahadsantiin daawashadiina. intaynu dib u kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.